waxaad ogaataa markasta oo aad beddesho fikirkaaga waa markasta oo aad guulaysato ama aad gaarto himilooyinka iyo hadafkii aad lahayd. Noloshaadu waa waxa fikirkaagu abuuro. Xaaladdeena nololeed waxa abuuray waa sida aan u fikirayno. Inta aan nooshahay waxa ugu weyn ee farxad ama murug ku dareensiiya waa sida aad u fikirayso. Haddii fikradaheenu wanaagsan yihiin, waxaan noqonaynaa dad farxad ku nool. Haddii ay naga adkaadaan fikrado xunxun, waxaan noqonaynaa dad aan farxad ku noolayn. Haddii aan haysanno fikrado cabsi ah, waxaan noqonaynaa dad cabsado oo fulay ah. Haddii aan ku fikirno guul darro, waxaan ku fashilmaynaa qorshaheenna. Nin la oran jiray Emerson wuxuu yiri, ii sheeg waxa qofka maskaxdiisa ku wareegaya, aniguna waxaan kuu sheegayaa qofku yahay. Sida runta ah, qofku ma noqon karo waxaanan ahayn. Wuxuu ku fikirayo ama ku haminayo. Waxaan aaminsanahay in mushkiladda ugu weyn ee hortaagan dhammaanteen ay tahay sidaan u doonayno fikir wanaagsan oo toosan. Haddii aan mushkiladdaas xallinno, dhammaanteen dhibaatooyinkeenna oo dhan waa xalismayaan. Albert Einstein ayaa mar wax laga weydiiyey dhaqaale xumada adduunka ka jirtay qarnigii 20aad qaybtiisa hore iyo sida looga bixi lahaa. Wuxuu ku jawaabay, kuma xallin karno dhibaatooyinka ina haysta inagoo adeegsanayna isla fikirkii aynu qabnay markii aynu dhibaatooyinka abuurnay. Marka uu qofku beddelo fikirkiisa xagga dadka ama shayga, wuxuu arki doonaa in dadkii iyo shaygiiba ay isbeddeleen, weliba si qurux badan. Qofku ma dhibaan dhacdooyinka, waxaa dhiba sida uu u qiimeeyo ama uu u qadariyo dhacdooyinkaas. Dhacdooyinku waa arrin qof kasta u gaar ah, isagoo dhacdo kasta u qiimeynaya siduu isagu u arko ama uu u fikiro. Marka waa in aan ku dadaalnaa si aan ugu noolaano farxad iyo xasillooni, in aan maskaxdeena ka buuxino fikrado wanaagsan ee inoo hogaaminaya waddada guusha iyo farxadda. Mar kasta oo aad ku dadaasho inaad maskaxdaada ka saarto fikir aan wanaagsanayn, kuna beddesho midka wanaagsan ee himilada iyo yoolalka cadcad ku qeexaya, waa markasta oo ay fududaanayso inaad guulaysato.